Nin maalmaha ka mid ah ayaa magaalo waxaa ku noolaa nin qabay xaas aad u qurux badan, taas oo dadka magaalada ku nool kulligood ay bogaadin jireen quruxdeeda. Ninkeeda wuxuu dareemay farxad iyo sidoo kale inuu ku faano xaaskiisa. Labadooda waxay bilaabeen nolol guur oo aad u qurux badan, balse sanado badan oo isla noolaayeen kadib waxaa soo wajahay xaaskiisa xanuunka ku dhaca maqaarka. Waxaa la geeyey isbitaalada dhammaan iyo dhakhtarrada dhammaan, laakiin nasiib darro wax daaweeya waa la waayey. Markii xaaskiisa ay go'aansatay in quruxdeedii ay dhuntay, waxaa soo wajahday cabsi aad u daran, taas oo ay ka cabsanaysa inay weyso jacaylkii ninkeeda u qabay. Maadaama ay ahayd naag aad u qurux badan, laakiin ninkeeda mar walba wuxuu isku dayayay inuu farxad geliyo, laakiin ayada waxay noqotay mid kaligeed ah, sidaas oo kale ninkeedana aad uga fogaato. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa ninkeeda magaalada banaankeeda wuxuu u aaday sababo shaqo awgeed, balse nasiib darro waxa uu la kulmay shil, kaas oo uu ku waayay labadiisii indhood uu wax ku arki jiray. Sidaas daraaddeed xaaskiisii waxaa soo wajahday murugo aad u badan. Waxay bilaabeen inay ku noolaadaan nolol iska caadi ah, laakiin xaaskiisii waxay bilowday inay garabkiisa soo istaagto ninkeeda oo aysan marnaba ka fogaanin, wayna ka caawiso wax walba oo uu u baahan yahay nolol maalmeedkiisa iyo sidoo kale shaqadiisa. Balse nasiib darro, maalin maalmaha ka mid ah waxaa dhimatay xaaskiisa. Ninkii wuxuu dareemay kelinimo zaa'id ah, wuxuuna go'aansaday jacayl uu u qabo xaaskiisa oo badnaa inuu iskaga tago magaalada iyo guriga uu ku noolaa, sababo la xiriira inuusan xasuusanin uusan dib u milicsanin xasuusihii xaaskiisii. Markii uu dhammaystay mas'uuliyaddii saarneyd oo uu duugay meydkii, oo intuusan bixin ka hor waxa uu imaaday deris la ahaa, waxa uuna ku yidhi, saaxiib, miyaad awooddaa inaad kaligaa noolaato? Sanado badan waxaa ku garab taagneyd xaaskaagii oo kaa caawin jirtay wax walba u baahnayd. Ninkii ayaa ku jawaabay, saaxiib, anigu ma ihi indhoole ama camoole ee keliya waan iska dhigdhigayay. Sababtoo ah haddii ay ogaan lahayd xaaskayga inaan arkayo xaaladaas xun ay ku jirto, waxay dareemi lahayd murugo aad u badan. Daraaddeed waxaan ka ilaalinayay murugadaas aadka u badan. Waxayna ahayd xaas aad iyo aad u wanaagsan. Sheekadan waxaa laga fahmayaa inuu xiriirku uusan ahayn kaliya quruxda qofka ee uu yahay jacaylka iyo is-ixtiraamida ka dhaxaysa labada qof ee xiriirku uu ka dhaxeeyo. Fadlan haddii aad soo gaartay ilaa iyo dhammaadka, waxaan kaa codsanaynaa inaad subscribe noo saartid, sidoo kalena muuqaalka aad like garaysid si aad ugu noqotid daawadaheena ugu horeeya.